الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan ku tilmaamay clipkii hore in khilaafku shay dabiici uu yahay bani aadamkana uu ka dhex dhaco laakiin ceebtu ay tahay inaan la maarayn ama laga heshiin marka waxaan tilmaami maanta shan qodob oo yani marka aan fiirino xataa xagga islaamka ama xagga culumta maadiga ah ee idaariga iyo maamulka aan fiirino wax lagu xaliyo midda koowaad waxaa weeye waa heshiis ama sulxi ama afka qalaad waxaa laga peaceful settlement baa la yidhahda yacni si nabadgelye ah baa wax loogu heshiinayaa wixii markii laisla eego labadii daraf labadii qolo ee khilaafku ka dhexeeyey labadii qof labadii shirkadood labadii dal labadii dad waxaa laysla fiirinayaa heshiis baa marka laga gaaraya oo qof walba uu yani maslaxadiisa u arko laga yaaba inuu wax ka tanaasulo maxaa dhacay heshiisku ama sulxigu maba yimaado haddaan isu tanaasul imaan marka kan waxbuu kasoo durkaya kanuna waxbuu kasoo durkaya kan waxbuu ka tegaya kan waxbuu ka tegayaa si maslaxadii guud ay u jirto oo dantii guud loo wada helo oo maaragtay isku taagnaantii iyo kala tagsanaantii meesha ay uga baxdo ayaa heshiis iyo sulxi la gaaraya waana waxa diintu ina farto فأصلحوا بينهما والصلح خير صلحgu mar walba waa khayr kala tagu waa shar tafaruqu waa wada khasaaro marka kaa sulxi waa heshiis waxaa jira sulxiga wax ka horeeyo qodob labaada oo ah wada xaajood afka carabiga tafaawud baa lagu yidhaha tafaawud wada hadal wada xaajood af ingiriisiga waxaa lagu yidhaha negotiation waa la wada hadlaya kan waxbuu keenaya kan waxbuu keenaya kan dhinac buu kaa tusaya fikradiisu kanu ka tusaya niyo halkaasa fikradaadu adiga ka qaloocan tahay maya adiga taadana halkaasay ka qaloocan tahay waayo qalooca see looga bixin karaa see loo turxaan bixin karaa aniga saanay iila muuqataa adigana saanay kuula muuqataa anigu waxay ila tahay dhinacaas inay ka saxan tahay anigu waxay ila tahay xaqa aanu leenahay saas iyo saas inuu yahay anigu waa la wada hadlayaa waa la wada xaajoonayaa daliilaa laysu keenayaa waa laysu soo dhodhoweynaya wada xaajood baa la yidhahda qodobka saddexaad wax lagu xaliyo waa xukun waa in la kala xukumo wada xaajoodkii masalan natiijo ma gaarin heshiis ma gaarin waxaa marka imanaya xukun baa imanaya xukunku waa maxay waa judgment waxa afka qalaad lagu yiraahdo ama maxkamad la dhihi karo waxaa labadii qodob hadda inagu isqancin kari weynay masalan ku heshin kari weynay maxkamad aynu tagno labadeenuba ina kala xukunta oo qof walba daliilkiisa iyo markhaatiyadiisa iyo wixiisa uu la yimaado iyo buruufyadiisa marka maxkamadaas waa labadoodu waxay ku heshiiyaan waa inay labada daraf heshiis ku yihiin qaadigan ama qudaada ama dadka maxkamadda ama garsoorayaasha xukumaya inagu dad muslima haddaynu nahay kitaabka iyo sunnada inoo ah waxayna kala xukumaan kitaabka iyo sunnadana waxaa xukuma dadkii yaqaanay baa xukuma marka in garsoorayaal xukunkii kitaabka iyo sunnada yaqaan aan cidna u eexanayn aqoon u leh maxkamad qaadidda aqoon u leh cilmiga aqoon u leh xukunka aqoon u leh nidaamka laysku xukumayo aqoon u leh meesha loo noqonayo laysku xukumayo marjica ahee kitaabka sunnada aqoon u leh qaanuunka iyo nidaamka dawliga xataa aqoon u leh baa la xulanaya oo labadood qolo way isku waafaqayaan niyo anigu waxaan arkaa anigu waxaan raalli ku ahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel maxkamad anna waxaanu hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxba kama qabo hebel iyo hebelna garoonku ale markii la isla waafaqo labadoodu isla waafaqaan wallahi shantaas qaadi shantaa garsoore toddobadaa garsoore maxkamadaas wixii ka soo baxdo way saxiixayaan way ogolaanayaan in maxkamadaas wixii ka soo baxdo ay raalli ku noqonayaan waana la iclaaninaya maxkamad baa la yidhaahda waxaa jira laba arrin oo furan oo islaamku ajar badan si wada jir uu u yimaado uu ka ratibay labadaas qodob oo ka baxsan wada xaajoodka iyo heshiiska iyo maxkamadda waxa weeye waxaa la yidhaahdaa midna sabir baa la yidhahdaa midna cafis baa la yidhahdaa waa laba arrin oo ajar wanaagsan lagu helo si dadku u wada jiraan muslimiintu u wada jiraan labadooda u wada faa'iidaan xoog u wada helaan adduun iyo aakhirana qofkanu inuu ilaahay wax ku siiyo ilahay baa ajarkiisa faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah
ajar baa ilaahay siinaya qofkii wax cafiya wallahi waxaan anaa lahaa xaq baanan u lahaa lacagtaanaan hebel oo kugu lahaa abshirka intaan waa cafiyey hadduu cafiyey khalaas waa dhamaatay sheekada ama qofkaanu wada socodkii waa sabir buu ku qaatay oo waxa weeye dulqaad qofkaanu waxa uu ku samaynayo iyo waxa uu ku yeelayo iyo waxa uu ku haynayo waa u sabray sabir buu ku qaatay ilahay subxana wala in sabartum lahuwa khayru lisaabiriin labadaasna waa lagu kabo oo waa xalis oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta wuu jeclaysiiyeyo wuxuu yaha wa an tacfuu aqrabu litaqwa wa an tasbiruu khayrun lakum marka in sha allahu tacaala laakiin meesha ku kala baxa ahi waxaa weeye wada hadal waa heshiis iyo sulxi iyo isu tanaasulid iyo maxkamad marka ugu dambaysa lagu kala baxo waxaan shanta ahayn weligeed in la iska laalaado ama la kala jeedo sax ma aha xalna ma aha islaamkuna ma ogola adduunka caqliga saliimka ahina ma ogola ee khilaafaadkiina xaliya ma sulxu ku dhameeya wada hadal ku dhameeya ama maxkamad ku dhameeya ilahay towfiiqda hana waafaji